muddo 5 maalmood oo uu shir uga socday waddanka Djibouti maayarada degmooyinka iyo caasimadda ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay hoteelka Kambeski ee ku yaala caasimadda waddanka Djibouti. Shirkani ayaa waxa soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada sayniska ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland, wakiilka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti, maayarka Buuhoodle. Tababarkani muddada 5 maalmood uga socday maayarada degmooyinka ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland waddanka Djibouti ayaa wuxuu ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa maamul daadejinta iyo maamul wanaagga dhinaca dowladaha hoose iyo golaha deegaanka ee degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Xidhitaankii shirkaasi waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada sayniska ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. runtii sharaf weyn bay tahay inaan goobjoogidii ka hado munaasabadeen aad muddada 5 cishaa ku soo qaadanayseen tababarkan aad ku qiimaha badan leh eed ku baranayseen aqoonta hogaaminta. waa wax aad iyo aad u qiimo badan bulshadeenuna iyo deegaanada ka timaadeen iyo xeerarka mas'uuliyadda haysaana waxaan aaminsanahay inay wax fara badan ku soo kordhin doonto. hogaamintu waa halka kaliya ee ummadu ka hormaraan. qofka hogaamiyihii waxa looga baahan yahay waa dulqaad, waxa looga baahan yahay hogaamin dhaba, waxa looga baahan yahay qorshihiisa uu dadka ku hogaaminayo inay noqoto to ka turjumaysa danta guud oo aan ka turjumay danta gaarka. meelaha ugu faraha badan ee ka yimaadaan khilaafaadkuna waxa weeye meelaha markay danaha gaarka la iskugu yimaado ayuu khilaafku imanaya. marka waxaan rajaynayaa runtii tababarkan inaad ku qaadateen cilmi wanaagsan, inaad ku qaadateen aqoon wanaagsan, inaad ku qaadateen isbarasho wanaagsan oo qof waliba aqoontii halkan uu ka qaatay deegaankiisii iyo maamulkii degmooyinkii ka yimid inay la tagaan oo ka turjumaan aqoonta la soo baray ku celiyaan. laakiin aqoonta aynu soo barnay haddaynu jeebadaha ku haysano iyo haddaynu aanu action ka dhigi kari weyno runtii waxay keenaysaa dee buugga maalinta 5 cisho ee dalxiiska ku maqaamay noqonaysaa. waxaan idinku dhiirigelinayaa inay dalxiis naga noqon. cilmiga aad barateen halka ugu wanaagsan ee laga hirgelin karo waa degmooyinka ka timaadeen. safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti uu halkan shir ku qabatay 24 dhakhtarradeena Somaliland waxa ku xigay UNHCR xubno badan ka socday UNDP oo maanta Maxamed Matelayo. marka runtii sharaf ahaan baa naga noo tahay safaarad ahaan iyo qaran ahaanba. marka waxaan leeyahay runtii in meelaha aad ka timaadeen Ilaahay si nabadgelyo ku celiyo. waan idin soo duceynaynaa. maayarka gobolka Buuhoodle mid manihin wax badan baan faa'iidnay oo leadershipka ama hogaamintu ay tahay oo aan ka faa'iidnay macalinka insha Allah degmooyinkeena aanu la tagi doono uguna faa'iideyn doono dadka yagii si aan maxay haytoy ugu dhaqanno ama aanu sameeyno hogaaminta wanaagsan. waxyaalo badan oo aan la koobi karin baan ka faa'iidnay kana baranay. aad iyo aad mahadsan yahay dhamaantiin. waana markii ugu horeysay oo shir dhinaca tababarka uu ka furmo waddanka Djibouti maayarada degmooyinka caasimadda ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.